Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in xalay dagaal u dhexeeyay ciidamada ammaanka Puntland iyo kooxo hubeysan uu ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka goboleedka Puntland. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidanka amniga ay weerar ku qaadeen kooxo hubeysan oo hub sharci darro ah kala soo degaysay xeebaha dhanka bari ee magaalada Boosaaso, waxaana kadib halkaasi ka qarxay dagaal toos ah oo u dhexeeyay labada dhinac. Ugu yaraan hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay dagaalkan, halka ay ku dhaawacmeen qof kale oo shacab ah iyo sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee Puntland. Wararka ayaa intaas ku sii daraya in ragga hubeysan ay goobta ka baxsadeen, waxaana haatan socda baaritaanno dheeraad ah oo ay wado dowlad goboleedka Puntland. Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay laamaha amniga ee Boosaaso oo ku aadan dagaalkaasi khasaaraha dhaliyay ee dhex maray ciidanka iyo ragga hubeysan. Inkastoo dagaalkan si weyn looga dareemay magaalada, haddana waxaa saaka degan xaaladda Boosaaso oo ah xarunta ganacsiga ee Puntland ee Soomaaliya. Inta badan waxaa magaalooyinka maamulkan ka dhaca dagaallo dhex mara ciidamada amniga iyo kooxo hubeysan oo ay ku jiraan kuwa ka ganacsada maandooriyaha. Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa maalmihii u dambeeyay waday howlgallo culus oo kula dagaallamaysa kooxaha hubeysan iyo burcadbadeedka ka soo cusboonaaday halkaasi. Xuseen Maxamed Sigane, Som 365 Channel, Muqdisho.